وذكري آد أكوبا آد أير دقيقة بركي حتى مدمو وحانا كهليسا مركز بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحان مانتا إذن ودنا أذكار كميدة أذكار الأخرى الصبحي إيو قلبكي وذكري آد أكوبا آد أير دقيقة بركي حتى مدمو وحانا كهليسا مركز دفاع وإلهي وحكا بدبادينيا waxaad ku dhib lahaa makhluuqaadka ilaahay oo ilaahay u abuuray dhammaantood shartooda ilaahay kama gelinaya waa xadiis marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa nin u yimid ninka marka wuxuu ka sheeganayay baaka la yidhahdo caqrab haraan waa loo yaqaanaa dabaqa looc waa la yidhahdaa magacyo badan oo taqaanaa soomaalidu marka wuxuu rasuulka ilaahay oo xalay haraankaas ama dabaqa loocaas xalay yaqaaniinoo yidhi marka dhib ayuu i geystay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa low qulta xiin idaa amsayt acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam yadurak u fiirso amaa low qulta haddaad dhihi lahayd nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad galabaysatay oo galabkii aad gaartay haddaad dhihi lahayd acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq acuudu waxaan magangelayaa bikalimaati illaahi taammaati kalimaadka ilaahay ee dhammaystiran ayaan magangelayaa min shari maa khalaqa waxa uu abuuray shartooda ayaan ka magangelayaa ilahay kalimaadkiisa ilaahay kalimaadkiisa dhammaystiran ayaa waxaan ka magangelayaa waxa uu abuuray shartooda ilahay waxuu abuuray yaa koobi karo aad u fara badan yihiin sharta ay leeyihin marka ilahay ka magangelayaa sa haddaad ii lahayd lam yaduraka ma ku dhibi lahayd nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qalooci wax lamida iyo abeesa iyo mas iyo kulli isku midow waxma ka dhibayaan welida marka wax loo baahan yahay marka subaxii salaad subax aad tukatid adkaaru sabaxna ku dartid acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq mise qaadan kartaa marka mise qaadan kartaa acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq laba mirir xataa ma dhamo laba mirir keliya saddex jeer leedahay talaata maraat subaxii galabtiin waxaa leedahay saddex jeer dhammaan marka ilaah oo ka maganaya shartooda difaac ximaa ilaah ku jirtaa cadowga sixirka isha xasadka kulli baa halay socday waxaa loo jeedin ilaah oo ka maganaya haddaa subaxii dhahdid ilaa galabkii ximaa ilaah ku jirtaa xifdiga ilaahay ilaah ka maganaya haddaa galabkii dhahdid ilaa subaxii habeenkii dhan ilaah ku xifdinaya marka adkaarta aan ku dadaalno mar walba oo dacooyinka nabigeena sal alla alay slam ka soo arooray aan ku dadaalno markaas waa badbaadaynaa oo dadka maanta dhibaatooyinka ka sheeganayaan oo dhibka gaarayo waa kuwii laalaadiyey ama dayacay adkaarta waa kuwii dayacay xuska ilaahay ee aan ku dadaalin mar qof waxaa loo baahan yahay xilli walba laa siyamaa bacda salaati subx wa bacda salaati alcasri labadaas xilli kuma sii jiraanba waa aayad qur'aan ilaahay uga hadlayay oo yidhi tasbiixso oo ilaahay xamdigiisa la imaaw qabla duluuci الshamsi wa qabla guruubiha allahu akbar qorax intaasa soo dhalan ka hor waa sala subax kadib wa qabla guruubiha intaan dhicin ka hor waa bacda salaati alcasri la imaaw imise aayadood ee qur-aanka loogu sheegay oo nebi sal l slam loogu tarbiyeynayay in salaad subax kadib adkaar la yimaado salaad casri kadibna dikri ilaahay oo la yimaado tasbiixdii taxmiiddii xijaabkii qur-aankii kulli wax dhan marka aan ku dadaalno dikrigan oo garanaysaanay intaa garanayna ha qortaan ha la xifdiyo aad u fud yahay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq salaada subax kadib saddex jeer dheh salaada casri kadibna saddex jeer dheh wabillahi tawfiiq asalaamu allah calaykum waraxmatu llahi wabarakaatu ogeysiis maxadka barashada diinta islaamka ee nasruddiin online maxadka online-ka ah ee barashada diinta islaamka ee nasruddiin waxaad ka helaysaa barashada qur'aanka kariimka ah iyo tafsiirkiisa barashada higaadda qur'aanka iyo xifdiskiisa iyadoo xoogga la saarayo ardayga in uu si fiican u barto higaadda qur'aanka si uu u gaaro isku filnaansho inuu wax qori karo waxna akhrin karo sidoo kale maxadka online-ka ee nasruddiin waxaad ka helaysaa barashada kutubta islaamka sida barashada tafsiirka qur'aanka kariimka ah iyo
barashada axkaamta fiqiga islaamka, sidoo kale barashada axaadiidta rasuulka sala allahu calayh wasalam, barashada caqiidada saxda ee islaamka, barashada adkaartii suubanaha sala allahu calay wasalam iyo xifdiskeeda. waddan kasta ee aad joogto iyo wakhti kasta ee aad u baahato maxadka nasruddiin waa garabkaaga waana wehelkaaga. wixii faahfaahin dheeraad ah ee aad u baahato inaad nagala soo xidhiirto nambarkan hoosta ku qoran ee whatsappka nagala soo xidhiir. mahadsanidin.